sida la socotiin adduunka waxa ku batay halista cudurkan loo yaqaan coronavirus-ka oo maalinta ka sii dambeysay si xooli ah ku socdo wadamo cusubna maalin ka sii dambeysay uu sii gaaray marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa mas'uuliyad ay ka saaran tahay qaadashadeeda kaalinta ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada marka waxaan soo jeedinaynaa dhowr qodob oo talooyin ah marka waxaan jeclaan lahaa inaan media intaas la wadaagno kow laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah 31 bisha 3 2020 waxaan si rasmi ah u fasaxnay dugsiyada barashada quraanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo 2 isbuuc ah laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah oo 31 bisha Maars 2020 labo in macallimiinta ay quraan akhriska badiyaan guryahooda ku akhriyaan taasna waa fareena sidoo kale waalidiinta inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta taasna waa fareena saddex in dadka waxaan soo jeedin lahayn in dadka ay ku dukan karaan guryahooda dadka inay guryahooda ku dukan karaan oo soo jeedinayna maadaama ay habboon tahay isu imaashaha in la yareeyo marka uu jiro cudurrada markay jiraan cudurrada faafa sida daacuunka cudurkan oo kale oo hadda aanan aqoon oo nagu soo kordhay in la yareeyo isu imaashaha in la raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka madaxda qaranka guud ahaan in la iska ilaaliyo meelaha dadka iskugu imaanayaan aan la iskugu imaanin يعني آيات القرآن كوحوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في جنان وتذك في جنان هم وجيان نول يعني قرقي سنين والودا تذك الناس كوي مادان إن لا يرى تاسع إن السكيلال وقدام بين وحن إله سبحانه وتعالى كبرينا إن أمة الصوماليات يجود أهان عالم كورن عذر كان هلسته إنه naga badbaadiyo oo ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ka badbaadiyo jazakumullahu khayr aad u mahadsan